maxay tahay sababtoo Suldaan Maxamed Faatix oo Sagnas Baasha xilka ugu dhiibi waayay? Boqor Daros miyay dhimanaysaa? Mase xalqadan way ka baxaysaa maadaama dhaawac daran loo geystay? Mase doorkeedu weli wuu sii jiri doonaa? Waxaa Maxamed Faatix soo bixi doonaa cadow cusub yuu noqonayaa mise yuu yahay? Soo dhawaada asxaabay, waxaan halkan ku falanqeyn doonaa xalqada 73 ee taxanaha Maxamed Faatix. haddii ay jiraan dad xiiseynaya taxanahani, weliba si gaar ah iska soo muujiya dadkan oo kasoo dhex muuqda muuqaalkan laagtiisa halala yaabo. haddana aynu u guda galno muuqaalka laga yaabo inuu dheeraado, haddii uu dheeraadana 5 daqiiqo inuu gaaro uma maleynay. maxaa yeelay waxaan doonayaa anigoo falanqeynaya inaa meelaha ugu muhiimsan idin taabto. haddii sidaa ka heshana dhanka kommentiga way nagu wadaagi kartaa. haddii rabtaan in muuqaalka la iska dheereeyo, taasina waa si gooni ah iyadana dhanka kommentiga inoo balana. qaybtan 73 Maxamed Faatix ma ahan kaliya qayb iska caadi ah. daawadayaasha intooda badanna waxa ay taageen gacanta. waxaa ku jira dagaal aan inaba caadi ahayn, akshan, ficilo aan loo kala yareysan. qaybtan wax ugu horeeya kaliya wali ka dhigan dagaalka kaliya maaha, waa qaabka maskaxeed oo Maxamed Faatix oo la ciyaarayay Falaad. Maxamed Faatix wuxuu Falaad u cadeeyay kaliya in aysan ahayn dagaalka ciidan badni iyo hub, marka qaarna maskaxda ay ka adag tahay in lagu dagaalamo seefta. dhanka kale sababta loogu dhiibi lahayahay xilka Sagnas Baasha wuu ku kalsoon yahay, daacadna wuu yahay, asigana waa uu ka warqaba, balse waxa uu diidayaa dad kaloo daacad ah in uu meesha sii ku waayo mise khilaaf oo ka soo dhex gala dowladdiisa. wuxuu doonayaa inuu si cadaalad ah u xukumo una daneeyo dowladdiisa, si qurux badan u ilaaliyo qalbiyada dadka uu xukumayo. Falaad sida muuqata hadda taxanaha goosgooska ka soo bandhigay waa uu ka badbaadaya Maxamed Faatix, balse ugu dambeyn waa uu dhiman doonaa. Falaad waxaan amar ku bixi doonaa Maxamed Faatix asigoo qasrigiisa jooga in la soo dilo, qoortiisa inta la jaro ayaana loo geyn doonaa Maxamed Faatix. taasi waxay ku caddaynaysaa hadda haddii uu badbaaday. marka xigta Falaad waa uu dhiman doonaa, siisunkan in lagu soo gabagabeynayo dhimashadiisa ayana u ekaa doontaa. sidoo kale waxaa muhiim ah in la xuso in taxanaha uu kusoo biiri doono cadow cusub, sida uu Falaad ugu soo biiray siisonkii hore markii uu dhammaanayay oo kale ayaa taxanahana mar kale siisonkan kale markii uu dhammaanay kusoo biiri doona cadow cusub. cadowgaasi magaciisa waa Iskandar Bey. waxaa kusoo biiri doonaa siisonka dhammaadkiisa si cadowtinimadiisa oo ula soo baxo mise isku wajahaan Maxamed Faatix siisonka kale markii uu soo bilaabanayo, yacni markii uu bilaabanayo siisonka kale. qodobkan ugu dambeeya waa Princess Rose mise Boqorad Rose. waxay muuqataa in kalkan dhaawac daran uu gaaray, balse sidaas ugama bixi doonto taxanaha. dadkii su-aashaasi inta badan weydiinaya waxaanu sheegaa in aysan taxanaha ka bixi doonin. waa laga yaabaa qorayaasha inay ka saaraan, laakiin hadda sida muuqata inaysan ka bixinin, iyadoo weli loo fiirinayo doorkeeda taariikheed iyo inay tahay hooyada Shahzaada Kim. halkan ayaa hadda kusoo gabagabeynayna xalqadan. waxay ugu muhiimsanaana waa idin sii. marka daawade, maxaad ka qabtaa xalqada soo socotana ma ka darnaa doontaa xalqadan? maxaadna ka qabtaa cadowga cusub ee usoo bixi doona Maxamed Faatix? ma noqon doonaa mid booskiisa ka soo baxo, yaana doorkaasi hogaamin doona ama jiri doona? waxay akhbaaradan ka ogaan insha Allah sidaan oo kale idinla wadaagi doonaa. intaan ka kulmayn muuqaalkiisa xiga, muuqaalkan like noo saar, iyo nagu seegin falanqaynta xigta ee qaybta xigta insha Allah. waxaan idin leeyahay sidaas nabadgelyo.